السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروين iyo mudanayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qosol iyo maad oo ka daawataan Faarax Nurtile channel. Waxaa idin soo gudbinaya Faarax Nurtile laftiisa. Markii waddankeenii qaxu ka dhacay ee dagaalada ka dhaceen waxaa jiri jirtay islaan ka soo qaxday Barco. Waxay la soo qaxday inanay dhashay iyo inanay eedow tahay. waxay keentay waddankan Ingiriiska dabeetana waxaa dhacday way soo korisay way ku soo tacabtay waxay ugu tala gashay in inanteeda uu guurso inankii eedadow tahay. markuu weynaaday ee secondary ka baxay ee jaamacad ka baxay ee inanteeda ay weynaatay ee jaamacad ay ka baxday ay ugu tala gashay inay isguursadaan. inanku wuxuu la yimi inan jaynaysada wuxuu eeday inantan jaynaysada halay guuriyo carruurta waddankan lama qasbo dooqooda ciyaara. islaanta iyadoo cadha ka hayso oo ciil ka hayo ayay iska ogolaatay lama qasbi karteen. arooskii loo abaabulay ayaa wuxuu inanka yidhi inantii haloo buraanburo. dee waa tane waa jaynaysade soo loogu buraanburayaa. islaantii baa itima tiri maxaan ugu buraanburaa talo waa jaynaysade. dee buraanbur baan ku uri waayo dhaqankeenna iyo afkeenna iyo hiddaheenna marka inan la guursado waxaa la ammaanaa oo loo buraanburaa inanta reerkooda, inanta geesiyada reerka ka dhashay, inanta ragga magaca leh ee ay ilmaadeerka yihiin tolkeed baa la ammaanaa. diblawaatana waa jaynaysade tolkeedna waa jaynayse see loogu buraanburayo loo ammaanaya. de waxaan ku jeki jaana waa adeerkii oo iyaduna gobor laaneeraado buraanbur arooskii baa dhacdo islaanta waa buraanburtay. najaa qurxoone inkastood yara jaanba tahay namara jimid yare inkastood wada jaanji tahay. najaa qurxoone inkastoo jiki jaan ku dhalay najuuj wamaajuuj ayaad jaallahooda tahay. na waxaa jira arlada jaynaha u badan oo maraykanka jeesayo juuqba looma dhaho. annaga laakiin jaynuhu beribay jidka dheer noo dhiseen. markii gabadhii la aroosay ay 40 baxday waxaa leeyahay 7 ka baxday guri gaara bay degeen. reerku way bashbashi barwaaqay ku noolaadeen. inan gabadhii uur bay yeelatay inan bay dhashay. jaynis soomaaliya oo isku dhex jiradii dabeetana maalin dambe ayaa show Vietnam iyo Philippine iyo China iyo Japan waxay siyaartaan sanadkiiba shiikh la yiraahdo Jan Kamun ay siyaartaan. gabadhii waxa u yimi habla Chinese iyo habla Japan iyo habla Philippine iyo habla Korea. waxay keena aan tagna xafladii Jan Kamun. islaantii bay ilmi yaray ka tagtay hay inanka yara baa islaantii lagaga tegey. inanka yara bay tii ayey intuu ooyey miyaad maxaa ku yaray inankii dhagaha xamay ila wuxuu u bartay cod yaro oo kaneecaadi cod kaneeco ayey macalooshaa ku xanuuntay markii dambe islaantuu buraamurtay ayeyo jirkaygiio how jaynayso yada jarmaadaada saakabey jow ku tidhi tolkeed reera jabaanay booqato indhaha isla jibiqsanyiin jaaladeed bay gaadhay oo dhareerka isla jagafsanyiin. dumar bay la soo joogaysaa wejiga isla jabacsanyiin. dad ayay la soo jaasaysaa timaha isla jidhibsanyiin. dad ayay la joogjoogaysaa xubnaha isla jilicsanyiin. siyaaradii jinkii muunayaa loo jibaysanaa. cabdilqaadir jaylaani manacnee maxaa jinkii muuna baray iyadoo jagam lebey soo jaf odhan mardhow. iyadoo waxaa akhriyaysa ayaanu soo maxaa kuu dhacay wiigo ooyayo waan u buraanburayo adigu dad aanad garanayn baad u buraanburaysaa. codkaaga weyn baa dhagaa qarxiya anigaba ka qaaday ana xoogaa jiniisa naqaani
chankamin chankahu jinchamin nuna wabigu leeyahay ha miyaw yani si adeerkii helay taasuna taasi ahayd waxaa kale oo barnaamijkeennan aynu ku soo qaadanaynaa waxaa dhacday in aan muxuu ahaa aan la hadlay masaajid waan ku uri hello I am 40 years old I want to naag xalaalan doonaya dabeetna waasaa la yidhi are you Muslim wasaan ku Muslim laakin laa ilaha illa Allah I am 40 years old no naag I want to naag dabeetna kaale baa laygu yidhi masaajidkii baan tegey masaajidka markaan tegey baa buug laysu saaray you want to American Muslim Canadian Muslim Jamaican Muslim Chinese Muslim Indian Muslim Somali Muslim waxaan ku uri waxaan Soomaali ahayn ayaan doonaya dabeetana waxaa laga qaaday 50 pound fiya halkan sug baa layidhi gabadh baa lagu keenaya anoo sugaya gabadh hilaacsan oo soo weysaysatay oo cadaan oo soo muslimtay ama sugaya gabadh haba madoobaatay qaarka sare iyo qaarka maasha allah ah ayaa islaam konga gabadh intaa leo konga ayaa leekanay are you going to for me anagii baa naxay oh my god ilaahay gabadh samata be intan baa lay keenay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun hooyad bay lahashaa mama I got beautiful Somali boy I will marry as soon as possible inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun intan baa lay keenay hal brother I am Muslim I am Fatima muslimkaaga laa cadaabe noocan baa lay keenay dabeetna anigoo istisaad uga carartaa ayay ti brother I have 7 condition 7 shuruudood baan haystaa haye if you passed I will marry you haddaad 7 shuruudood haddaad ka soo baxdid waan guursanaya haye markaas kan san kuli soo daa ay ti brother are you smoking sigaarka ma cabta aan kuli yes nashiishad 7 packet every day my house like seeking world train more gurigayga si dagaalka nabada adduunka treenadii dagaalka nabada adduunka dhuxush ku shaqayn jiray sidoo kale ayaa guriga ka baxa maasiti no I have asthma leh kii way cross karayso waxay tiri kaawad ku dhacday brother are you working kaasaan ku never ever weligaa ma shaqaysaa bay ku tiri how do you live saad noosh saan ku shaxaad habaryare ayay meelaha noo shaxaad no kii way cross karayso but brother are you married before hore ma guurstay saan ku yes 7 wife kaasaan where I'm all divorced one with furay kaasay ku tiri why I'm good because I like it temporary married 1 week married I like it intay kacday bay ku tiri I don't want you anna markaasaan ku leeyahay alxamdulillah in ilaahay i dhaafiyey mahad ilaahaba iska leh taasuna waxay ahayd gabadhii madoobay ee masaajidka aan kulannay ayay ahayd waxaa intaa aan ku darayaa oo idinku darayaa barnaamijyadeenna walaalayaal aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa sida ay igu soo gurmateen ee subscribe-ka ay siiseen like-tii sharetan ay siiseen sii fidiya halkii kasii wada laakiin mid baan idinka codsanayaa gambaleerka inaad furataan ama jeliska inaad furataan ayaan doonayaa ummadda soomaalida guud ahaanna waxaan leeyahay soomaaliyey waa astaantaas astaan aan leeyahay weya waa soo yaacay waayo barnaamijkii carruurta inoo bilaabi doonaa barnaamijkii af soomaaliga ka baro soomaaliga iyo alif beedka inoo bilaabi doonaa insha allah waxaynoo bilaabi doonaa googaalaysigii intaba waxaan ugu talagalay in ubadka iyo waalidku ay wada daawadaan oo afkeena wax laga faa'iido marka xitaa barnaamijka murtiya mahmaha waxaan ugu talagalay in mahmaha carruurta u sheegtaan anigu waxaan xafidnay markaanu yaryarayn baan ugu xafidnay ahayn 10 jirka 11 jirka 12 jirka 13 jirka xilligaas carruurtu waxay xafideen ma ilaawaan marka waxaan ugu talagalay barnaamijkeenu noqdo barnaamij ay wada daawadaan qoysaska iyo waalidka iyo carruurteeda wada daawadaan anigoo aad iyo aad idinku mahadnaqaya anigoo aad iyo aad idinku kalsoon waxaan jecelahay inaan wada xidhiidhno oo ay barnaamijkan ka soo daynayno carruurta aan wax ka siino oo carruurta la wadaagaan si ay af soomaaliga u bartaan waliba carruurta yurub joogta iyo ameerika iyo carabaha joogta ama qurbaha isku wada dar joogta
inay aad iyo aad soomaaligeenna u bartaan. marka xaggay ka baranayaan? mahmaha, googaalaysiga, sheekooyinka, intaba carruurtu way ka baranayaan afkii soomaaliga ah. aad iyo aad baan ku mahad celinayaa. thank you very much. halkanu waa faarmutida jannada, waa ka daawataan isla faarmutida laftiisa. salaan sharaf guddoonta, qiimayn iyo qadarin ku laran tahay. waan idin salaabayaa. intaynu mar labaad kulmi doonno barnaamijkan la mid ah, waxaan leeyahay maalin wanaagsan, sanad wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.